casrigan tiknoolajiyada iyo macluumaadka yihiin kuwa hogaaminaya horumarka dunidan aqoonta ma tahay si joogta u cusboonaanaysa la jaanqaadida horumarka casrigan wuxuu u baahan yahay maskax xambaarsan macluumaad cusub wax akhrinta iyo mutaalacinta waxay ka mid yihiin kaabayaasha ugu muhiimsan ee kugu saacidaya in ogaalkaaga qofeed uu la socdo xogta iyo aqoonta oo horumarkooda xawaari dheeraad ah ku socda bulshada dawladaha horumaray qofkiiba sanadkii wuxuu akhriyaa wax ku dhow 10 buug sidoo kale kuwa guusha gaaray sida maarayaasha shirkadaha waaweyn oo celcelis ahaan iyagu sanadkii 60 buug akhriya haddaba sidaynu horumari karnaa oo aynu la tartami karnaa dadkaasi waxaa jira caqabado aad u fara badan cilmiga casrigan oo ku qoran luqado qalaad oo fahamkoodu adag yahay macluumaad aad u fara badan oo adag tahay inaad kala saarto xaqiiqdeeda iyo halka ay ka soo jeedo Soomaalidu aan lahayn dhaqan akhrisa haddaba website-ka akhriya wuxuu ku hayaa xalka aad kaga gudbi lahayd caqabadahaasi haddii aad tahay arday danaynaya inuu helo waxbarasho la mid ah midda dawladaha horumaray haddii aad tahay ganacsade doonaya inuu bilaabo ganacsigiisa haddii aad tahay maareeye ama agaasime doonaya inuu si habsami leh wax u hogaamiyo sidoo kale haddii aad tahay shaqaale doonaya inuu xirfadiisa shaqo u kobciyo ama aad tahay qof doonaya aqoon kororsi guud website-ka akhriya wuxuu kuu suura gelinayaa inta buug aad doonaysid inaad akhriso waqtiga ugu gaaban iyo sidoo kale buugaag maqalo oo luqadaada hooyo lagu duubay iyo maqaalo website-ka akhriya wuxuu kuu soo gudbinayaa cilmiga casrigan oo luqadaada hooyo lagu qoray wuxuuna kuu fududaynayaa wadada guusha iyo horumarka website-ka akhriya waa tayayaha tacliinta Soomaaliya hamuugaan oo hadda booqo website-ka akhriya ku qor www.akhriya.com oo eego baahidaada haddii aad doonaysid inaad wax iibsato dooro kitaabka aad rabto inaad iibsato bogga u gaarka kitaabka waxaa ku qoran faahfaahintiisa iyo qiimihiisa ku dhufo iibso hadda wuxuu ku geynayaa bogga faahfaahinta iibka kadibna ku dhufo proceed to checkout waxaa ku soo baxaya macluumaadka shakhsiga buuxi macluumaadkaaga dooro qaabka lacagta aad u bixinaysid EVC Plus dahabshiil ama sahal lacagta buugga uu joogo ku dir lambarka meesha ku qoran haddii aad mobilka isticmaalayso taabo badhanka cagaarka ah kadibna riix dalbo wax yar kadib waxaa ku soo dhacaya fariin SMS oo ku sheegaysa inuu dhameystirmay iibsigaaga gal qaybta ku qoran maktabadayda oo aad ka dejisan karto buugaagta aad iibsatay dhammaantoodba hadda iyo wixii ka dambeeya ku xirnow website-ka akhriye